markaas ninkii lugta uu qabtay wuu jiiday ninka wuxuu dhahay walaalow habeen hore meelaan seexdaan waaye buundada bridgeta aan seexday hoosteeda qabo waa igu dilay walaal waa ku fahmay laakiin taas waxay caddeyn u tahay guriga ilaahay masaajidka ilaahay dad badan oo muslimiin baa Idriis oo dhibka maxaa keenay waxba ka horeeyay waa kala helaynaa sub sanaya gabadha su'aalaheedii niyow qofka bini'aadanka horta inuu wax isweydiiyo waa wax muhiim ah ma garata masaajidku wuxuu walaalayaa muslimiinta oo dhan ma garata anagu Soomaali ahaan kuma sii jirno markii dee si loo fiiriyo masaajidda dhan waa garanaynaa anaga unbaa ku tukanaa waxaa dhacday markii marxaladan la galay ays magaalada soo gashay la dhibtooday waxaa dhacday in community-yaashu ay isku tiirsanaadaan marka maalin baa waxaa dhacday horta su'aal baan rabaa markhaati gashan aan raba inaan idinku markhaati gashto anigana aan ku jiray inteenan ma waxaa jira nin aan sadaqa masaajidka ka bixin ma charity ahaan u bixin miyaa jira oo weli masaajidka aan lacagaha laga qaado $50 $30 $20 aan bixin miyaa jira عموما dadka waa la bixiyaa صعوبة بدنا waa bixinaa Soomaa sadaqa ahaan baa u bixinaa waa niyeysanaa waxaan u niyeysanaa dadka masaakiinta ah Soomaa in wax loogu qabto ama ceelal loogu dhiso ama situationo badan Soomaa maya sadaqa la bixiyaa waxa lagu qabanayo dadka mas'uuliyadda lahaa garanay laakiin sax laakiin anaga niyad ahaan waxyaabaha oo la baxno waxa laga yaabaa laba arrin baad zero hoos gelinaysa aan rabo inaan kala saaro okay markaan ku dhameeyo hadhowtii ii kala saar marka waa may loobi doonaa heesa soco marka in adeero waxa dhacday waxaan ka shaqeynayay meel halkaan oo group home dhibaatadu markay dhacday waxaan garanayaa box baa la igu soo khaldaa maalin walba adi markii la gaaro casarkii oo kale bas boxka waa fiiriyaa maxaa khaldan boxkan cuntada ku jirto mooska anagu dee dad islaamaan nahay waxaan hadda mararka qaarkood oo maaragtay doofaarka u malaysid ma cunno bas maalinkii dambe baan waxaan dareemay dariskayga oo Mexican inay ahaayeen ma garanayay Guatemalaise baa loo keenaa subaxiina waa loo keenaa galabkii marka anigu soo galana waa loo keenaa bas markii dambe aan weydiiyay waxaan ku yiri dhowr jeer baa igu soo khaladeen marka manihin anaga reerkan u geeyna reerkan way maxay sata xoday anaga charge-ka ka soo jeednaa waxaan ku caawinaa dadka guryaha ku jira okay as community ahaan baa u sameynaa maadaama dadka is guriyuhu ka soo baxaynin caruurta iyo dadka maaragtay cabsanaya marka dhowr jeer baa waxa isweydiiyay waxaan isiri niyo sadaqada waa la wada baxaa masaajidka mar walba kharash kasta waa ku baxaa waay dhalinyarada markay u badato haddana hadda dhanka Carmel bay degan yihiin qofkii garanaya area Blessdale oo dhan iyo Pleasant ayaa ka buuxa oo dhismahaas oo dhan caan bay ku wada yihiin ka gees ilaa Franklin meel ka soo sokaysa marka waxaan isweydiiyay waay loo garab istaagi waayay situationka xaaladda uu adkaatay hadda maalin waxaa arkayay markii dawladdu tiri dadka 2 milyan waxbaan ku caawinaynaa dhalinyaro badan oo saf u gashay oo guryahoodii labadii bilood meelahaasi 3 bilood ku dhawaad codsanayay in laga bixiyo marka anu waxyaabaha isweydiinaya waxa kamid ah way ma systemkeena khaldan ma sida wax loo wada khaldan ma raba inaan dadka eedeeyo moogta marka su'aalo badan oo qofku isweydiin karaa jira hada ninkaas oo kale dabcan waa nin xanuunsan oo aaminsanahay nin toorey watay waa cabsi Soomaaliya kale waxaan xasuustaa masaajidada ma aqaana garanaysiine haddii cishaha laga baxo nin walba sinsiyeeri buu qaadan jiraa ama joodari gees ku dhigan jiray salaada subax cid wax dhibaateyn jirtay mala cid ka saari jirtay malahan marka bal su'aalaha adan ku weydiinaya anu ma khaldama aha qof bil aadan ahaye waa khaldami karaa bal waxaan rabaa arrinkaas inaad bal nafahansiisaan ha maadaama aan community nahay ma fahantay qodob aan ka dhaho qodobka dambe qodobkaas kale Saciid aan u diinaya walaal horta Soomaaliya iyo Mareykan farqi weyn baa u dhaxeeya Mareykanka masaajidaha waxay leeyihiin wax la yiraahdo 501c3 leeyihiin waa non profit organization way non profit organization
hay-ad meel furan oo building raangaraynayso hadduu qof ku dhex dhinto ama uu dad ku dilo meeshii waxaa ka imaanayo dhibaato badan baa ka imaanayso maxkamadaa la saarayaa inshuransiya ka jiro dhibaatooyin badan baa ka dhacayso meelaha masaajidahana sharci iyo waxay leeyihiin mataqaanaa gooniya oo lagu dhaqay leeyihiin sida hadda ninkan Dan Lemon oo kale tusaale aan kugu soo qaato maxaa loo maxkamadeynayaa waxaa leeyahay meel lagu cibaadeysto ayuu galay oo mataqaanaa mudaharaad ka sameeyey waa meelaha la protect gareeya ka mid tahay marka waxyaalo badan oo naga qarsoon baa jirto aan ogeyn oo loo diidayo qofka dhibaatada wada ana qofka fiican kama hadlayo laakiin qofka hadduu dhibaato wado dad waxaa jira iska cadiifaysan oo qof asaga drug addict ah oo naftiisiba halligay ayay waxay ku leeyihiin dad masaajid cibaado u imaaday ha dhex seexdo oo ha joogo oo mataqaanaa baalka hadduu berita kusoo kala jeesto oo laayana waxaa weeye maxaa u keentayna lagu leeyahay meel u roon ma laha marka midda kale arrinta kale hadda ka hadlayso walaalow community-ga waa disorganized weeyaan okay dadkan waa dad traumatized weeye survival lagu jiraa masaajidka survival loo furtay hay'adaha waa survival bay ku jiraan Somali community qofka maanta Somali community rangareynayo inuu survive gareeyo rabaa ninka imaamka masaajidka mataqaanaa joogo inuu survive gareeyo rabaa Idriso ku wada tidaa nooga jawaab sugada man kala helno yaan doodayna qof walba waqtigiisa la siinaya marka haddii adigu qof asagaba tiisi haysato survive gareynayo adigana taadi ku haysato survive gareynayso inaa eedeysa sax ma ahee waxaa la rabaa eed intaa iska dayno inaad tidhaahdaan war sideen waan jabnaye seen wax ku qabsannaa maxaan bedelnaa maxaan sixi karnaa ayaa loo baahan yahay laakiin ha ka dhigina midka Somali community-ga maaragtay leaderka ah iyo midka sheekha imaamka masaajidka joogo iyo midka truck driverka iyo hooyada single inay dadkan dad dhargay oo iska raaxaysan nin walba survival buu ku jiraa survivalka daa fahmaysaana waxaa weeye qofkan jiifkiisi iyo cuntadiisi iyo noloshiisu la tacaalaya ayuu mataqaanaa meel saarno harjada hadduu hal paycheck hadduu gafo waxaa laga yaabaa inuu asaga bannaanka imaanayo one paycheck hadduu gafo markaas adigana eed baad dusha ka saaraysa waxaa leedahay maxaa wax u qaban weysay no hadda dadkiina hadda kor saaran ma la socotaan Maraykanka 340 milyan baa degan imise qof baa paycheck to paycheck ku nool mataqaanaan oo lagu leeyahay hal paycheck haddii gafaan kiisa kale waxaa way guriga waa laga saaray homeless bay noqonayaan annaga ku deriso adaa ku watee 80% anaa nambarada fiiriye 80% of the population Maraykanka mataqaanaa they don't even have $1,000 in their saving account hal kun oo dollar xataa savingkooda account ku dhex jiro aniga haddan baarayaa waxay ku jirto ma fahamti فيري أنا إدريس وحنا كهلينا مساجد بيجك تو بيجك وادتك وير هاوس كي شقوين كعادي كسر شقة هذا فور إكزامبل فيري أنا وحلوليه هاي مؤذن ك هرت وحقف وحنجعلها يجي جوابه إن مركو government تيجا مالها الدين تفنجرينا صوتو كفنجري وحيالها بكاس إلا فن كمرك الوصينا نون بروفيت سمان مساجدك هو نون بروفيت على هذا نون بروفيت كمرك العقل وصينا وحقوق قبل وليها العقل ياس العقل you just said هو نون بروفيت هذه ما هنا هذا بروفيت ولكن ما هذا فاهم أنا وايد نون بروفيت وحلوقة ورقدر شكلها أنا حركتين وسعتين تاني أكو سعنا هذا سي وحلو صح وحلو هذا لكن يعني محيتها waxa saateen toos xagee ka cadeyn kartaa qoftii toosan qaato been baa sheegaysaa been lama rabo hay ku socdo walaal su'aala waxa u qabaa Saciid hadaayatu wuxuu sheegay kimiliyaasha sida Bakistaaniyiinta oo kale iyo mataqaanaa ee loo yar iyo waxaas qabaan walaal xogtas ma noo soo ururin kartaa anaga xataa community-gan wallahi ma oga darteen bal u sameeyaan ayaan dhaxdaan qolka waa laga hadlay idrisno ka hadlay hadda Rumania digan Afghanistan markuu Trump cadaalad gareeyay oo waxyaalo ku suubiyay White House niman geysadeen niman looyiriin ya oo u dooday oo xuquuqdooda u soo dhiciyay oo wuxuu u soo dhiciyay dirsadeen maanta ma haysano anaka qof oo kamid ah hal gabar oo Ilhaan Cumar oo noo qeyleyso oo Congress-kaas nagu dhex jirto lawyer maaha laakiin waa politician waa haysanaa laakiin lawyer oo maanta intuu meesha White House noo aado lawyer oo dadkan la dhibaatay oo noo doodayo ma haysano taas waa number 1
في مساجد كذا هنا كعلى مركز السوق ده أكل هنا في مساجد كمركز مساجد جزء مريكان سيبا مينيابوليس يمالها وحين government funding وهلين وحاول حدود وحاعمالي شو هذي government funding قاتان سان وسان وحنا وبركة سانا وبري عمالي شو ما فهمت هدو مساجد الدكسي لي هو كل الشيخ هدو قطبيلا كل قطبيلا سان مدي كتسان وين هذا وورنك قالوا بدلع مركا مساجد هذا that's why in funding وقاعد sida hindiya ku dhacdo kale hindiya saas ku dhacday that's why funding ay uga qaadeen oo maxaa lahaa masaajidada waxa lacagta ay helaan salaada jimcaha markii la tukado iyo rabadaanada iyo salaada maxaa lahaa duhurka oo kale wixii donation anaka nagala qaadaa dadka ku tukaday qofkii 100 baxsaday qofkii 50 baxsaday qofkii 500 baxsaday dadka oo meesha ku tukaday laga qaadaa laga aruuray right kiniisadaha kalena ma aha tax deduction iyo waxa asaasana ma tax deduction iyo waxa asaasana ma aha marka binta kalena waxa way ciyaaladan homeless naga gabdhahan qurxoon iyo wiilashan qurxoonani indhahay soo arka aniga group waxa qana wiil Soomaali iyo kuwa cadaan iyo kuwa Mexican suubiyo maadina arkay marka what are you guys doing out here way ay ku badan ay lugeeyay marka boosooyina leeyihiin daaweyn ku dhex jiro qaar gaariyaal socdo biyaha xididayeen waxyaalahaas marka huwa yaa weydii inkaas waxaan yeah you could donate you could bring water if you want you could come with us marka Saturdays Saturday walbo waara marka gabdho badan iyo wiilal badan oo Soomaaliya meesha ku soo arkay anigana biyo xadaagiya iyo socks iyo maxaa lahaa isnaanada iyo jaakada meelo ka soo aruuriyay jaakadaha qabowga oo kala meelaha ka soo aruuriyay dadka ka soo aruuriyaa geeyaa marka waxay ku xiran tahay maanta qof walbo Soomaaliya Minnesota degan I bet you they drive by those homeless people every day I drive by Greasy naxariisti inay naga tagtay taasoo ku ogaadaysid masaajidada hala eedeen السلام عليكم كولا يسوقل مركا كولا يسوقل انت انا قدامي روان نحريست عليك بلاوتا انت مساجد اي ليفي سد waxyaalaha rabaa inaan ku darsado walaalayaal inta aan ku dhameeyo hal mar inta aan ku dhaweeyo marka masaajidada intii la eeday lahaa iyo sheekhayaasha la eeday lahaa adig يا إلهي يا قان سعيد وكسع كولا صوبنا